kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan oo ku soo dhawaada Booraysti gaar oo aan la leenahay gudoomiyaha xisbiga hayaan Cabdixabiib ku soo dhawow Home Cable TV farxad bay tahay in halkan ku wada shaahayna galabta ama waraysi aan kaaga qaadayo gudoomiye Cabdixabiib waxa naga hortaa hankaaga siyaasadeed iyo meesha uu ka soo bilowday khayr aad baa u mahadsan tahay Cabdixabiib waa ganacsade ahaa 10 sano la soo dhaafay ganacsi ku leh dhowr gobol oo ku yaala wadanka Mareykanka Cabdixabiib also wuxuu ahaa aqoon-yahan baraka jaamacad ku taala wadanka intii ganacsiga ka hor shahaadada koowaad waa political science waxaan ka qaatay jaamacad la yiraahdo Metro State University tayada labaad waa public policy waxaan ka qaatay jaamacad ku taala Minnesota oo la yiraahdo Minnesota University of Minnesota haddana waxay dhamaanaysaa shahaadada PhD-da oo iyaduna political science hankayga siyaasadeed anigu waxaan u shaqeyn jiray waxaan u ahaa la taliye hay'ado international oo Soomaaliya la shaqeeya waxaan la shaqeeyay siyaasiyiin Soomaaliyeed baan wax u soo noqday la taliye xagga dhanka siyaasadda wax badan baan runtii fiirsanay 20 iyo dhowr sano la soo dhaafay siyaasadda Soomaaliya aad baan ugu dhawaa aad baan ugu fiirsanayay waxyaabo markay igu dhiirigeliyay inaan siyaasadda Soomaaliya ka qayb qaato waxaan aaminsanahay siyaasadda Soomaaliya wadamadan hormaray waxa hormariyay hogaamiyaashooda shacabkooda hormariyay laakiin Cabdixabiib waa qofka noocaas oo wadanka qurbaha waxaan deganaa muddo ku dhow 30 sano wadanka aad baan u imaadaa oo qariib kuma ahay waxay ugu dambeysay sanadka bilowgiisii bishii Janaayo koorna waxay ugu dambeysay 2016 marka si joogtaan u imaadaa waa ka warqabaa wadanka inta badan siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxa lagu dhaliilaa markay masraxa siyaasadda imanayaan in damacoodu yahay lacag iyo inay magac ku raadiyaan marka marnaba uma soo doonaan inaan dhaqaale ka sameeyo dawladda Soomaaliya runtii ay og tahay xaaladeeda meesha ay marayso in Soomaaliya dhaqaale la siiyo ma ahana qofka dhaqaalaha ka soo raadsanaya waa qof runtii aan damiir lahayn baan aniga aaminsanahay waa qof aan ixtiraamayn sharaftiisa waa qof aan ka yaqiiqsan oo xididka yaqiiqsiga uu ka maqan yahay qofka dhaqaalaha u soo dooranaya Soomaaliya waxay u baahan tahay in la dhiso waxay u baahan tahay taageero waxay u baahan tahay in shacabka Soomaaliyeed la taageero oo runtii loo sameeyo waxyaabaha arrimaha bulshada oo tirada badan oo runtii ka maqan marka qofka waxaan jeclaan lahaa qofka Soomaaliya imaanaya inuu u yimaado inuu Soomaaliya wadanka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed wax tara uu sanasagu wixii yaraa meesha la ka qaadan gudoomiye maxay tahay ujeedka oo asaasay xisbiga hayaan adigu aad gudoomiyaha ka tahay marka waxyaabaha ugu dhaliyay xisbiga hayaan inaan asaasno waxay ahayd in laga baxo shakhsiyaadkii boorsada la imaan jiray oo loo gudbo dad isku xiran oo aaminsan inay team approach wax ku qaban karaan sababtaas loo aasaas marka waxaan jecel lahay in aysan ugu soo noqon inkastoo hadeertaan waqtigii iska gabaabsi yahay oo aan u maleynay in lagu noqon doono doorashooyinkii hore haddana ID-da ka dambeysay xisbiga hayaan taas ay ahayd markii hore haddii marka ay noqon weydo in xisbiyada asxaabta badan lagu doorashada lagu galo which unlikely waqtiga ka haray daraadiis still teamkii xisbiga ku midoobay sidiisiiba u wada shaqeynaya u raadinaya qarannimada Soomaaliyeed doorashada uga qayb galaya una u jecel yahay inuu ku guuleysto doorashada soo socota waan xisbigaagu wuxuu ku dhawaaqay inuu ku soo horjeedo qodobadii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb isla markaana ay dhinac ka istaageen Puntland iyo Jubbaland ma la oran karaa adigoo xisbi qarana haddana waxaad safla noqotay maamuladii dhinaca ka istaagay horta anaga Jubbaland iyo Puntland waxay leeyihiin madaxweynayaal bay leeyihiin anigu uma hadlo Jubbaland iyo Puntland laakiin waxaan malaysaa inaan isku meel arintan aan ka fiirinay aan ka aragnay anagu waxaan soo jeedinay
nooca doorasho oo Soomaaliya ka dhacaysa 2020 waa inuu ku jaan go'an yahay waqtiga gaaban oo doorashada ka haray waa in la yiraahdaa meeqa bilood baa doorashadii ka hartay marka hore la isweydiiyaa su'aashaas kadibna doorashada wadanka ka dhacaysa lagu jaan gooyo waqtigaas gaaban oo noo haray waxaan kaloo aragnay wax kasta oo maanta lagu heshiiyo hadday fiican yihiin hadday xun yihiin hay'adii fulinta oo fulin lahayd ma jirto wali lama magacaabin ra'iisul wasaare marka waxaan u malaysaa in saan horeba u sheegnay in gaariyoolihii laga hormariyay faraska badanaa faraska iyo gaariyoolaha faraska horeeya marka in go'aan la qaato oo go'aan laga gaaro doorashada noocay noqonayso waxa ka horeeya in ra'iisul wasaare fulin lahaa in la helo waxaan kaloo diidnay guddiga doorashooyinka oo gudoomiyihiisu ay mowqif cad istaagtay dhowr bilood ka hor oo ay tiri wadanku wuxuu u baahan yahay si aan doorasho ay noogu hirgasho waxaan u baahannahay waqti kororsi in haddana dib ay ugu soo laabato ayadii ay noqoto qof qolada fulinaysa doorashada arintaas ayaduna waxay noqotay xogaa waxay nala noqotay si kale after all marka la isku soo duuduubo qodobada ka soo baxay shirka Dhuusamareeb oo qaarkood runtii ay fiicnaayeen oo annaga 9 bilood ka hor waxaan soo jeedinay in doorasho la aado ku salaysan degmooyin oo xildhibaanada laga soo doorto xisbiyada asxaabta badan baan soo jeedinay 9 bilood ka hor laakiin mowqifkan qabnay 9 bilood ka hor iyo kan maanta aan qabnaa oo kala duwan sababtoo ah 9 bilood ka hor waxaan haysanay doorashada waxaa ka dhimanayd 12 bilood maantana 3 bilood baa ka dhiman marka waxaan aaminsanahay wax kasta oo laga wada hadlayo waa in lagu saleeyaa muddada gaaban oo doorashada ka haray Somaliland sida ay sheegtay waxay tiri Soomaaliya uu ka go'ana adiguna hadda waxaa tiri shirkii Dhuusamareeb waxaa ka maqnayd maamul goboleedyadii qaar kamid ah oo waliba ay Somaliland ku jirto sidee la isu waafajinayaa haddii tiri Somaliland anigu Soomaaliya ka mid yahay adiguna aad leedahay shirka ayay ka maqanta Somaliland horta saa ogsoon tahay waxay ku leedahay xildhibaano aad u tiro badan bay ku leedahay dowladda federaalka oo matala Somaliland waxay leedahay golo wasiiro hadda madaxweynaha prime minister ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka ah wuxuu ka soo jeedaa Somaliland dowlad goboleedka Puntland waxay ku leedahay xildhibaano waxay ku leedahay golo wasiiro waxay ku leedahay la taliyaal marka dadkaas oo dhan waa reer Somaliland marka waa in arrimaha Somaliland ayaga wax laga weydiiyaa ayaga la tashadaa maadaama anagu ay ku joogaan Puntland iyo dowladda federaalka labadaba ay matalaad ku leeyihiin dadkaas waa in wax la weydiiyaa soo dadkaas kama aysan imaan ayagu Somaliland mise Somaliland waxa ah Muuse Biixi iyo golihiisa wasiirada Somaliland waxa ah cid kasta oo ka soo jeeda dhulkaas oo maxaan ku iraahdaa haday qayb ka yihiin Puntland iyo haday qayb ka yihiin dowladda federaalka marka dadkaas waa in laga talageliyaa processka doorashooyinka 2020 oo aan laga dhigin dad aan cidna matalan dad bay matalaan dad baa soo dirsaday soo doortay waa golo wasiiro waa xildhibaano waa la taliyaal waa agaasimayaal runtii dadkaas noocaas in la ignore gareeyo marka waxaan aaminsanahay in mar kasta oo laga doodayo arrimahan ay xaadir ka ahaadaan waxyaabaha masiiriga u ah wadankeena Soomaaliya gudoomiye xisbiga hayaan goorma la diiwaan gashay xagee ka diiwaan gashan yahay xafiisan ku leeyahay guud ahaan Soomaaliya xisbiga hayaan waxa la diiwaan galiyay sanadka bilowgiisii baan bilownay warqadihii registrationka ama xaraynta warqadaha xisbiga wuxuu haystaa shahaadadii ku meel gaarka ahayd oo xisbiyada uu haystaa xisbiga hayaan xaruntiisa ugu weyn waxay ku taallaa magaalada Muqdisho runtii anagoo ixtiraamayna magaalooyinka kale oo gobolada wadanka
waxaan go'aan ku gaaray inaanan ka furan wax xafiisyo aanan ka furan gobolada kale anagoo ixtiraamayna mowqifkooda ku aadan ama khilaafka ka dhaxeeya dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waatay codsadeen dowlad goboleedyo ka mid ah dowlad goboleedyada waddanka inaan aysan ogolaanayn in ay ka furtaan ama barnaamijyo ku qabtaan siyaasadeed dowlad goboleedyada marka arrintaas siyaasadeed laga heshiiyo waxaan jeclaa inaan waddanka dhammaantiisa aan ka furano xafiisyo haddii lahayd gudoomiye safarkaagii puntland aad ku timid magaalooyin badan baa soo martay bulshada qaybaheeda kala duwan dabcan waa saartay safarkaas horta waxaan u mahad celinayaa marka ugu horeysa isimada gobolka bari oo runtii si fiican si qurux badan noogu soo dhaweeyey magaalada Boosaaso aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan ka bilowno magaalada Boosaaso safarkan oo ka bilowdo waxaa ku xigtay magaalada Qardho aan soo maray oo aan la kulannay Boqor Burhaan asaguna si fiican noo soo dhaweeyey gudoomiyaha degmada gudoomiyaha gobolka dhalinyarada maxaan ku yiraahdaa qoladii loo magacaabay fatahaad ka dhacday maxaan ku gudigii loo magacaabay fatahaad ka dhacday Qardho runtii dad badan oo si fiican noo soo dhaweeyay aan kala xog iswaraysi aan sameynay maanta aan garow joogno ayadana si fiican lagu soo dhaweeyay waxaan ugu xigi doontaa inta gobolada inta nooga hartay Puntland waa tagi doonaa haddii waqtiga noo saamaxo kadibna waa soo safarkan uu sii socon doonaa magaalada Muqdisho iyo gobolada kale oo waddanka baan runtii baarnaa inaan la kulanno markaas caqabada hortaagan waxaan oran karaa barnaamij loogu talagalay in looga shaqeeyo 4 sano baa waxa la rabaa in lagu hirgeliyo muddo ka gaaban 3 bilood madaxweyne farmaajo wuxuu rabaa doorashadii asxaabta badnayd waxaa jira baalka microwave-ka la yiraahdo oo lagu kuleysto cuntada marka arrinta shaah kuleysatay 2 daqiiqo la galiyaa suuq ugu kulaada shaah marka wuxuu rabaa doorashadii asxaabta badnayd oo halka qof iyo halka cod ahayd inuu microwave-ka galiyo 2 daqiiqo uu yiraahdo waa bislaatay kale cuna annaguna waxaan leenahay dimuqraadiyadda saas uma shaqeyso waqti dheer bay qaadataa waxay u baahan tahay wacyigelin bay u baahan tahay waxay u baahan tahay in maaragtay dadka la tira koobo waxay u baahan tahay in dadka la register gareeyo ID loo sameeyo amniga waddanka uu sugan yahay al-shabaab laga xoreeyo siyaasadda laga heshiiyo waxyaabo badan baa ka horeeya inta doorasho hal qof iyo hal cod aysan waddanka ka dhicin marka waxaan leenahay haddii dimuqraadiyad la rabo in loo gudbo de waa in processkii saxda ahaa la maraa oo aan dadka ugu dambeyntii aan la maaweelin waqtiyada aad firaaqada tahay maxaa isku maaweelisa waqtiyada aan firaaqada ahay waxa isku maaweeliyaa horta waxaan jeclahay anigu akhriska waa jeclahay aad baan wax u akhriyaa ma reer TV ma ahay fankana waa jeclahay oo heesaha Soomaaliyadana waa jeclahay oo waxaan u maleynayaa maark fanaaniinta Soomaaliyeed qaarkood inaan hadii la barooweyn lahaa mikrofoonka hal mar hadii la dhiibi lahaa inaan ka cod qurxonaan lahaa waa maleynayaa wali Janiska Smeelin hadii hadaan ku dhahno fanaanka jeceshay heesano baad ku luqan fanaaniinta aan jeclahay waxa kamid ah ugu horeeya Cabdi Tahliil heesa runtii aad u macaan buu leeyahay saa ka warqabtid waxa ku xiga Maxamed Salmaan Tubac Xasan Aadan Samatar oo odayaashii hore fanaaniintii hore Axmed Cali Cigaal heesahaas heesta waxaan jeclahay Cabdi Tahliil uu qaaday oo la yiraahdo wagaray adduunyada maybe magac kale in leedahay laga yaabaa heesaasan jeclahay intaynu ku kulmi doonno barnaamijka waxaan ka tagaynaa sida iyo nabadgelyo adigana aad baan ugu faraxsanahay inaad waraysigan naga ajib okeyna waxaan ku leenahay ku soo dhawo magacaygu waa Suldaan magacaygu waa Seeraar isku si ayaan u hadalaa isku sina waan u libisanaa isku midna waanu nahay anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel
anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo war ma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxaad mar hore igu sheegi weyday fikir hadal oo hadaalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya samtel shirkadda dadweynaha